hadlaya maadada vitamin D-gu waxay ku jirtaa maqaarka qaybtiisa hoose ama dubka. Dabeetana markay ku dhacaan falaadhaha cadceeddu waxay ka dhigtaa mid active ah oo markaa shaqaynaya. Taas markaa waxay qofka ka badbaadisaa vitamin D deficiency-ga ama markaa inuu ku yaraado. Dhinaca kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulan wacan oo wanaagsan meel kasta aad dunida ka joogtaan. Waa markale barnaamijyadeena caafimaadka. Mawduuceennan ayaan si kooban waxaan ugu soo qaadan doonaa marka qofka uu ku yaraado vitamin D-gu qulqulka dhiiggiisa, xaaladda loo yaqaano vitamin D deficiency. Xaaladdaasi in badan waxay kusoo noqnoqotay ama isku arkay dad Soomaaliyeed oo waayadii hore inta badan laguma arki jirin dadka Soomaalida ah ama inta badan Soomaalida kuma dhici jirin in marka qulqulka dhiiggooda ku yaraado vitamin D-gu, maadaama deegaan ahaan dadka Soomaalidu ay ku nool yihiin markaa deegaano aad qoraxdu ugu badan tahay. Marka laga hadlayo maadada vitamin D-gu waxay ku jirtaa maqaarka qaybtiisa hoose ama dubka. Dabeetana markay ku dhacaan falaadhaha cadceeddu waxay ka dhigtaa mid active ah oo markaa shaqaynaya. Taas markaa waxay qofka ka badbaadisaa vitamin D deficiency-ga ama markaa inuu ku yaraado. Dhinaca kale marka laga hadlayo waxaa soo badanaya dad Soomaaliyeed iyagu markaa cuna cuntooyinka markaa aan ka iman nooleyaasha sida caanaha iyo hilibka oo kale. Dadka noocaasi waxay halis ku jiraan inuu ku dhaco vitamin D deficiency oo markaa inuu vitamin D-ga ku yaraado qulqulka dhiiggooda iyo sidoo kale qaybaha kale markaa jirka ee muhiimka u yahay vitamin D-gu sida lafihii oo kale. Muhiimadda markaa uu leeyahay vitamin D-gu waxaa ka mid ah in si sax ah loo isticmaalo calcium ama macdantaasi. Dhinaca kalena waxaa la xusaa haddii markaa uu lafaha ku yaraado inuu qofka ku dhici karo xanuunka loo yaqaano rickets-ka, markaa sida muuqaalka ku aragtaan. Taas markaa dhici karto in lafihii markaa qaabkooda isbedelo, gaar ahaan marka laga hadlayo carruurta oo kale xilliga hore marka ay korayaan. Haddii xanuunkan ku dhaco waxaa la yidhahdaa wax hoos u dhacaya in macdanihii markaa laga faa'iidaysto. Dhinaca kalena waxaa dhici karta in haddii vitamin D-gu ku yaraado in markaa qaab dhismeedkii lafuhu uu isbedelo. Gaar ahaan waxaa la yidhahdaa carruurta oo kale xanuunka loo yaqaano rickets-ka wuxuu ku yimaadaa marka lafuhu ay korayaan. Tusaale ahaan oo kale waxaa yar macdanta loo yaqaano calcium-ta, taasoo markaa qofka ka dhigaysa in qaabkii lafuhu markaa isbedelo guud ahaan. Kale marka laga hadlayo waxaa daraasadooyin dhawaale socday lagu sheegay in maadada vitamin D-gu ay ka hortagto in markaa waxyaabaha sida bakteeriyada, fayraska oo kale ay soo weeraraan qofka, kuwaas markaa hoos u dhigi kara caafimaadka qofka isla markaana waxyeeleyn kara. Calaamadaha marka qofku ku yar yahay vitamin D-gu lagu garto waxaa ka mid ah in marka qofku murquhu xanuunaan iyo sidoo kale lafihii, maadaama shaqada vitamin D-gu ay tahay inuu ka caawiyo lafaha in si habsami loo isticmaalo macdanta calcium-ta. Waxyaabaha kale marka la xusay waxaa ka mid ah haddii markaa vitamin D-gu ku yar yahay qulqulka dhiigga ee qofka oo qofka halis ugu jira inuu dhinto xanuunada markaa ku dhaca wadnaha. Waxaa kaloo la sheegaa haddii qof markaa da'diisu ay weyn tahay inuu halis ugu jiro qofkaasi in markaa maskaxdiisu ama xusuustiisu ay hoos u dhacdo. Waxyaabaha kale marka la xusay waxaa ka mid ah carruurta oo kale in halis ugu jiraan inay ku dhacdo asmada ama xiiqda ama neef-qabatiga, taasoo markaa aad u daran. iyo ugu dambeyn wuxuu qofka halis ugu jiraa inuu ku dhaco xanuunka loo yaqaano kansarka. Sidoo kale daraasado la qaaday ayaa si xooggan u soo jeediyey in vitamin D-gu uu ka hortago isla markaana uu daweeyo noocyo badan oo ka mid ah xanuunada kuwaasoo dadka la nool yihiin. Xanuunada la xuso waxaa ka mid ah nooca labaad ee macaanka ama sankarowga, sidoo kale dhiig karka ama sidoo kale cadaadiska dhiigga ee sarreeya, iyo ugu dambeynta xanuunka loo yaqaano multiple sclerosis, kaasoo ku dhaca habdhiska dareenwadka iyo sidoo kale qaybo kale oo kala duwan oo markaa jirka ah. Waxyaabaha keena in vitamin D-gu hoos u dhaco ama uu yaraado waxaa ka mid ah haddii qofku aanu cunin cuntooyinka markaa uu ka helayo vitamin D-ga, sida dadka markaa iyagoo aan isticmaalin waxyaabaha ka yimaada xoolaha sida caanaha iyo hilibka oo kale. Dadkaas marka waxay khatar ugu jiraan in hoos u dhaco xaddiga vitamin D-ga ee markaa looga baahan yahay marka qofku caafimaadka qabo. Waxyaabaha kale markaa keeni kara in vitamin D-gu hoos u dhaco waxaa ka mid ah haddii marka qofku aanu cadceedda isu dhigin oo kale waxay ka mid tahay in markaa vitamin D-gu ku yaraan karo. Waxyaabaha waxaa ka mid ah haddii qofku ku nool yahay meelaha qabow oo kale, haddii markaa dhar badan uu xidhan yahay. Waxyaabaha kale ee markaa keeni kara in vitamin D-gu hoos u dhaco waxaa ka mid ah dadka markaa maqaarkoodu madow yahay. waxaa la yidhahdaa falaadhaha cadceedda oo ku dhacaya ayuu hoos u dhigaa markaa inay sameeyaan maadada loo yaqaano vitamin D, sida markaa daraasado la qaaday lagu ogaaday. Gaar ahaan marka laga hadlayo dadka markaa madowga ah ee da'dooda ay weyn tahay waxaa la yidhahdaa waxay halis ugu jiraan in maadada vitamin D-gu ay ku yaraato. Sidoo kale waxyaabaha keeni kara in maadada vitamin D-gu qofka ku yaraato waxaa ka mid ah haddii markaa keliyihii oo kale qofka aanay shaqaynaynin, haddii qofka keliyihiisa tusaale ahaan oo kale aanay active ka dhigeen maadadii vitamin D, waxaa dhici karta qofka markaa inuu ku yaraado vitamin D-gu, tusaale ahaan oo kale dadka waaweyn oo kale. Sidoo kale waxaa la xusay haddii habdhiska dheefshiidku aanu nuugi karin, gaar ahaana mindhicirradii oo kale xanuunada ku dhaca ay sababi karaan in markaa qofka ku yaraado maadada vitamin D. Ugu dambeyntii waxyaabaha la xusay ee keeni kara in qulqulka dhiigga uu ku yaraado vitamin D-gu waxaa ka mid ah hadduu qofku yahay qof cayilan ama aad u buuran oo kale. Waxaa la sii daayaa unugyo badan oo markaa duxa kuwaasoo markaa burburiya vitamin D-ga. Taasina waxay markaa hoos u dhigaysaa maadada vitamin D-ga. Siyaabaha loo baadho marka laga hadlayo hababka loo baadho si loo ogaado heerka vitamin D-ga qofka waxaa laga qaadaya dhiiggaasu marka lagu ogaanayo heerka marka uu marayo vitamin D-giisu, hadduu markaa hooseeyo, hadduu dhexdhexaad yahay, iyo hadduu markaa uu joogo vitamin D-gu heerkii markaa looga baahnaa qof caafimaad qaba. Tusaale ahaan hadduu yahay 25 ilaa 50
nanogram per milliliter waxay ka dhigan tahay qofkaasi inuu caafimaad qabo isla markaana vitamin D-giisu uu marayo heerkii looga baahnaa. Haddii se uu gaadho 12 nanogram per milliliter waxay ka dhigan tahay qofka vitamin D-giisu inuu hooseeyo isla markaana waxa loogu yeerayaa vitamin D deficiency ama vitamin D-ga qofku waa uu hooseeya. Marka laga hadlayo siyaabaha loo daweeyo haddii aan sii raacino waxaa qofka looga baahan yahay inuu isticmaalo ama uu cuno cuntooyinka laga helo vitamin D-ga kuwaas markaa aynu sheegi doono. Waxaa kaloo ka mid ah in qofka la siiyo waxyaabaha markaa lagu taageero dawooyin marka qofku afka qaadanayo iyo sidoo kale qofkaasi inuu had iyo jeer uu ku dadaalo inuu cadceedda isu dhigo marka qofku ku nool yahay meel cadceeddu ay ku yar tahay inaanu qofku aanu daboolin maqaarkiisa ayaa talahaan lagu soo jeediyaa si marka qofku uga faa'iidaysto fallaadhaha cadceedda ee kooban ee markaa maqaarkiisa soo gaaraya kuwaasoo laga yaabo inay sare u soo qaadaan heerka marka vitamin D-ga kuwaas markaa qofka ka badbaadiya inuu ku dhaco vitamin D deficiency marka xaaladda loo yaqaano vitamin D yaraantu. Ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabeynayaa cuntooyinka sida gaarka looga helo vitamin D-ga. Cuntooyinka waxaa ka mid ah kalluunka ama malayga gaar ahaan marka laga hadlayo saliiddiisa iyo beerkiisa. Waxaa kaloo ka mid ah caanaha markaa lagu daro vitamin D-ga. Waxaa kaloo ka mid ah dhammaan midhaha markaa la isticmaalo iyo ugu dambeyntii ukunta ama beedka qaybteeda huruudda ah ama jaalaha. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaya mawduucina ku saabsanaa vitamin D-gu marka qofku ku yaraado iyo siyaabaha marka qofku isaga daweyn karo. Tan iyo kula dambe haddii rabeedmo oo ku mahadsantihiin daawashadiina nabadgelyo.